6 arrimood oo ay tahay in aad ka fogaato hurdada ka hor. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabi soo dhawaada meel walba aad joogtiin. Barnaamijka aad daawanaysiin ama channelka aad daawanaysiin waa channelkii Dr. Stan Hussein. Barnaamijkan waa barnaamijka caafimaadka. Alaab aad nooga barateen maalin walba in aad barnaamij caafimaad aan mar walba aan soo geliyo channelka. haddana kusoo dhawaada fadlan ha iloobina subscribe, like and share-ka. maanta barnaamijka sida aad hordhaca aad kusoo aragteen waxaa waaye waxyaalaha aad iska ilaalinaysid inta aad hurdada ama aad seexanin. mar walbo waxaa fiican hurdada. horta haddii aan ka hadlo hurdada waxyaalaha keenaya ama hormoonka u xilsaaran hurdada waxaa waaye hormoonka loo yaqaano melatoninka. melatoninka wuxuu u xilsaaran yahay shaqadiis waxaa waaye hurdada iyo soo kicitaanka. marka melatoninka haddaa qas ku ridid oo jawigii idin melatoninka looga tirgalay haddaad ka bedeshid waxaa kugu dhacaya hurdagaf. hurdagafkana jirka qofka bini'aadanka uma fiicno maadaama ay maskaxda ay daalayso, jirkii idin wada daalayo haddii uu qofkii hurdo ku filan uu helin. mar walba waxaa lagaaga baahan yahay in aad seexatid 7 saacadood ilaa 8 saacadood waqti u dhaxeeya in aad maskaxdaada aad jirkaaga aad siisid. waa maxay marka faa'iidada hurdada la jirto? hurdada haddaad seexatid unugyada jirkii oo idil unugyada cellskii oo idil baa soo growmayo growthkii oo soo abuuritaankii badan bay kaa saacideynaysaa. sidoo kale freshness bay ku siinaysaa, adigoo dhan energetic baad noqonaysaa oo energy badan baad helaysaa. waxyaalaha aad iska ilaalin kartid inta aad seexanin. haddaan u guda galo barnaamijka waxaa waaye sheyga koowaad waxaa waaye in aad iska ilaalisid fariimaha ama telefonka aad isticmaalaysid waqtiga aad sariirta aad soo gashay, ama waqtiga aad sariirta haddaad soo gasho sariirta ee waqtiga aad seexanaysay ay tahay telefonka ama laptop ama wax walba aad isticmaalaysid ama fariimaha aad celinaysid waa in aad iska ilaalisid. sheyga labaad waxaa waaye inta aad hurdada aad waqtiga aad hurdada aad isu diyaarinaysid wax yar ka hor ha qaadanin cunto culus. cunooyinka culus sida cunooyinka oo heavy fatka ku jiro, fatka badan ku jiro oo saliida badan ku jirto waxay ku keenayaan hurdagaf. waxyaalaha kale waxaa waaye waxa in aad iska ilaalisid loo baahan yahay waxaa waaye shahga ama kafeega wax loo yaqaano oo qaxwada ah, bunka sidoo kale loo yaqaano, ama shahga caadiga ah waa inaad iska ilaalisid inta aad sariirta waqtiga aad hurdada aad galaysid ka horna inaad iska ilaalisid ayaa fiican. maadaama qaxwada waxaa ku jiro ama shahga waxaa ku jiro wax loo yaqaano caffeine. caffeine-kani wuxuu ku keenaa inuu hurdagaf uu kugu rido. sheyga afraad oo in aad iska ilaalisid loo baahan yahay waxaa waaye wax loo yaqaano layrka oo ku shidan ha seexanin. layrka oo ku shidan hadduu hindhahaaga uu soo qabto layrka oo ma seexani kartid maadaama maskaxdaadii waxay ay signalka ay uu translate gareynayo layrka iyo hindhahaaga waxaa waaye in aad weli maskaxdaadii ee maalin cad ay aad ku jirtid camal bay u dhaqmaysaa. marka mar walba waxaa fiican in marka aad seexanaysid ama aad rawaxaysid in aad iska ilaalisid nalka aad iska damisid. sidoo kale waxaa waaye waqtiga sheyga shanaad waxaa waaye waa inaad iska ilaalisid waqtiga haddii lasoo gaaro maqribkii kadib waa inaad iska ilaalisid biyaha badan aad cabaysid. biyaha badan ayagana waxay kugu ridayaan habeenkii in aad soo kacdid aad suuliga aad usoo kacdid adkaadi badan ay kugu dhacdo. marka tanin waa laga fiican waa inaad iska ilaalisid maadaama ay hurdadii ay kaa qasayso. sheyga ugu dambeeya waxaa waaye oo lixaad wax loo yaqaano filmaanta cabsida ah ama barnaamijyaal oo ama long conversations intaad sariirta soo galeen ama wax oo hurdada waqtigeed haddii la gaaro oo ka hor istaagayo. asxaabi waxaan soo gaarnay gabagabadii gunaanidka barnaamijka. fadlan meel walba joogtiin subscribe, like, share-ka kiilowina channelka. balanteena waa 10K meel walba joogtiin. waxaan idin rajeynayaa sidaa iyo nabadgelyo.